maanta saad la socotaan waxay ahayd maalintii doorashada guddoonka golaha shacabka waxaa raba inuu isbaaro u dhigto madaxweynaha madaxweynaadkiisa dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo waana isbaaradii ugu dambeysay tanna ma ahayn tii ugu horreysay wuxuu horey ugu soo dhigtay dhowrsamare 1 iyo 2 iyo 3 wuxuu u soo dhigtay 17 September xilligeedii extension buu aaday wuxuu soo dhigtay tii dhaarinta xildhibaanada oo iyadan caqabad badan ay ka jirteen aad la socoteen hadda guddoonka golaha shacabka doorashadiisa ayuu rabaa inuu isbaaro u dhigto sabab waxaas dhan waxaa ku kalifaya waa nin quustay oo rajo aan ka lahayn Soomaaliya oo rajo aan u lahayn in dib loo doorto oo mustaqbal xumo iyo future la'aan u muuqato markuu wuxuu go'aansaday dalkan inuu geliyo khalkhal iyo burbur iyo hay'ad dastuuri inaan dhismin asoo madaxweynaha qaranka madaxweynaadkiisa dhammaaday dalkan wuxuu fidno u gelinayaa hadda isbaaro u dambe ugu dhiganayaa dhowr iyo 10 kursi oo laga soo doortay magaalada Ceelwa oo maray habraaci guddiga siid iyo fiid iyo state-ka iyo xafiiska wasaaradda ku-joogtaynta iska lahaa si aad la socotaan maanta in process dimuqraadi ah isbaaro loo dhigto ciidamada waddooyinka lagu soo daadiyo booliis in wasuul la isticmaalo wariyaasha bannaanka lagu jirjiro lagu garaaco caqabado lala dhaco waxaas oo dhan waxay ka hor imaanaysaa shuruucda dalka u taal laakiinse farmaajo iyo tiimkiisa weliba sharci ma ilaalin waana ku tuntaan dalkanna hadda waxay gelinayaan foodo waxyaabaha u yaabka badan ee waddanka hadda ka dhacaya waxaa ka mid ah xarunta killa Hargeysa ee lagu shaqaynayay waa nimanka hooyaasha ku soo garaacay xaruntii baarlamaanka ay siiyadii iyo haantii ay xabado la dhaceen askar dowladnimo sheeganaysa oo la soo amrayo oo bistoolado wata oo qoryo wata oo afduuban ayaa intay soo galeen burburinayaan hantidii dowladda waa dhaqan jirridnimo oo ka baxsan xeyndaabka dowladnimada ninkan asagoo hadda muddo sanadii ka badan sharci darro ku jooga ayuu intaasi samaynayaa waxaan ku sugannahay hadda maanta afisyooni waxaan ugu sugannahay xerada teendhada in guddoonka golaha shacabka la doorto wuxuu damcay inuu ciidamo ku soo daadgurayo Amisom ayaa la wareegtay howlku waa safe ATMIS ayaa la wareegtay xildhibaanada way soo socdaan gudoomiyaha kumeelgaarka ugu jooga si diraad buu qabtay in la soo xaroodo dhammaan xildhibaanada saaxiibaday ah waxaan ugu baaqayaa in la soo wada xaroodo ninka ku soo gali kara ninka ciidankiisu ku soo gali kara nin walba awoodda ku soo gali kara inuu ku soo galo waxaan gudanaynaa waajib dastuuri ah inaan la idin cabsi gelinin inaan khalkhal idinku abuurin in dadka qaarkood aan la dhihin maanta waa la banadaa meesha la tegin waxaan ugu baaqayaa maadaama howlka hadda aan joogno xildhibaano kaloo badan ay joogaan inaad imaataan ilaa ay afurka halkan aan ku afurno ilaa ay guddoon golaha shacab maanta aan ka dooranayno haddii ilaah ka raacno dalkan guddoonka aqalka sare waa la doortay guddoonkii golaha shacabka kale ayaa haray ra'iisul wasaaraha maanta ayuu yimid teendhada iyo albaabka gudihiisa iyo aagga ay ka dhacayso doorashada kulli waa safe hadda annagaa ku sugan dhammaan xildhibaanada waxaan ugu baaqayaa in la soo wada xaroodo si waajibkeena dastuuriga aan u gudanno waana isbaaradii ugu dambeysay iyo jagboyntii ugu dambeysay maxamed cabdullaahi farmaajo uu dhigto waxaa sumcad darro ugu filan maxamed cabdullaahi farmaajo iyo inta la shaqaysaba in maanta laisku haysto oo uu diidan yahay in dadkii reer Gado ay matalaadooda ka qayb galaan doorashada guddoonka golaha shacabka iyo madaxweynaha maadaama maslaxadiisa gaarka uu ka waayay dagaalkii galbaharre iyo balad xaawo ay wuxuu u soo wareejiyey teendhada iyo xalane wuxuu ku soo aruuray difaaciisa uu noqday hadda in isbaarooyin uu dhigto agagaarka airportka oo waxa lagu cusub madaxweyne isbaaro dhiganaya oo jagboonti dhiganaya oo xildhibaano qaran isbaaro u dhiganaya waa dhaqan aad u fool xun waxaan qori doonaa petition haddana xildhibaanada labada aqal oo ah maadaama madaxweynaha
dastuurka ku qoran tahay muddaxileedkiisa dhammaysta xilligiisa si nabadgelyo ah ku wareejiya oo dimuqraadi ah ku wareejiya xilka wuxuu noqonayaa xildhibaan sharafeed buu noqonayaa oo baarlamaanka ka tirsan laakiinse maadaama fidno iyo foodo iyo dagaal iyo xabad wixii ka dhacay villa Hargeysa wixii ka dhacay afisyooni teendhada wixii ka dhacay airport hotel dar xabadaha la dhacay guddoonka la soo weeraray maadaama falalkaasi racan uu sameeyey waxaan qoraynaa petition ah inuu noqon doonin xildhibaan sharafeed ka mid noqda golaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sida Xasan Sheekh uu hadda uga mid yahay marka insha Allah ma noqon doono xildhibaan ka mid ah xildhibaan sharafeed ka mid ah xildhibaanada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ma noqon doono petitionkaasna waa bilownay maadaama falal liddi ku ah iyo argagax leh iyo kutubasho dastuur iyo burbur iyo fidno iyo dagaal in waddanka geliyo horena ugu horseeday haddana weli uu ku taagan yahay petitionkaas ayaan wadnaa waana bulshadina hadduu ilaa karaa noqdo waxaan geyn doonaa baarlamaanka in ninkaasi uuna noqon ama sharafeed maadaama baarlamaanka uu ku soo biirin maadaama baarlamaanka 11aad maadaama extension uu aaday danna uu laayay doorashada istaag uu ka sameynayo haddana weerarkii weli uu ku wado taas ayaan iyadana ka shaqeynaa haddii ilaa karaa noqdo xildhibaanada saaxiibada ayaa labada aqal xildhibaanada saaxiibada golaha shacabka ah waxaan u baaqayaa meel walba ay joogaan inay soo xaroodaan oo maanta loo baahan yahay in la muujiyo geesinimo waxaan aniga ahayd baarlamaankii 10aad ayaan ku jiray hore ayay ii soo mareen baarlamaan la qabsado jawaari way soo martay kii gudoomiye maxamed mursal ahaa ayay soo martay kii markii ra'iisul wasaaraha la ridayey ayay soo martay maanta saad la socotaan waxay ahayd maalintii doorashada guddoonka golaha shacabka waxaa rabaa inuu isbaaro u dhigto madaxweynaha muddaxileedkiisa dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo waan isbaaradii ugu dambeysay tanna ma ahayn tii ugu horreysay wuxuu horey ugu soo dhigtay dhowsamareeb 1 iyo 2 iyo 3 wuxuu u soo dhigtay 17 September xilligeedii extension buu aaday wuxuu soo dhigtay tii dhaarinta xildhibaanada oo iyadan caqabad badan ay ka jirteen aad la socoteen hadda guddoonka golaha shacabka doorashadiisa ayuu rabaa inuu isbaaro u dhigto sabab waxaas dhan waxaa ku kalifaya waa nin quustay oo rajo aan ka lahayn Soomaaliya oo rajo aan u lahayn in dib loo doorto oo mustaqbal xumo iyo future la'aan u muuqato marka wuxuu go'aansaday dalkan inuu geliyo khalkhal iyo burbur iyo hay'ad dastuuri inaana dhismin asagoo madaxweynihii qaranka muddaxileedkiisa dhammaaday dalkan wuxuu fidno u gelinayaa hadda isbaaro u dambe ugu dhiganayaa 12 kursi oo laga soo doortay magaalada Ceelwa oo maray habraaci guddiga siid iyo fiid iyo stateka iyo xafiiska ra'iisul wasaare ku-joogteynta iska lahaa si aad la socotaan maanta in process dimuqraadi ah isbaaro loo dhigto ciidamo waddooyinka lagu soo daadiyo booliis in wasuul la isticmaalo wariyaasha bannaanka lagu jirdilo lagu garaaco xabado lala dhaco waxaasoo dhan waxay ka hor imaanaysaa shuruucda dalka u taal laakiinse farmaajo iyo tiimkiisa weliba sharci ma ilaalin waana ku tuntaan dalkanna hadda waxay gelinayaan foodo waxyaabaha u yaabka badan oo waddanka hadda ka dhacay waxaa ka mid ah xarunta villa Hargeysa ee lagu shaqaynayay waa nimanka hoogayaasha ku soo garaacay xaruntii baarlamaanka AC'yadii iyo haantii ay xabado la dhaceen askar dowladnimo sheeganaysa oo la soo amrayo oo bistoolado wata oo qoryo wata oo afduuban ee intay soo galeen burburinayaan hantidii dowladda waa dhaqan jirridnimo oo ka baxsan xeyndaabka dowladnimada ninkan asagoo hadda muddo sanad ka badan sharci darro ku jooga ayuu intaasi sameynayaa waxaan ku sugannahay hadda maanta afisyooni waxaan ugu sugannahay xerada teendhada in guddoonka golaha shacabka la doorto wuxuu damcay inuu ciidamo kusoo daadgurayo Amisom ayaa la wareegtay howlku waa safe ATMIS ayaa la wareegtay xildhibaanada way soo socdaan gudoomiyaha gaarka ugu jooga si diraad buu qabtay in la soo xaroodo
dhammaan xildhibaanada saaxiibaday ah waxaan u baaqayaa in la soo wada xaroodo ninka ku soo geli kara ninka ciidankiisu ku soo geli kara nin walba awoodda ku soo geli kara inuu ku soo galo waxaan gudanaynaa waajib dastuuri ah inaan la idin cabsigelinin inaan khalkhal idinku abuurin in dadka qaarkood aan la dhihin maanta waa la banadaa meesha la tegin waxaan u baaqayaa maadaama hoolka hadda aan joogno xildhibaano kaloo badan ay joogaan inaad imaataan ilaa iyo afurka halkan aan ku afurno ilaa ay guddoon golo shacab maanta aan ka dooranayno haddii ilaah ka raali noqdo dalkan guddoonka aqalka sare waa la doortay guddoonkii golaha shacabka kale ayaa haray ra-iisul wasaarahana maanta ayuu yimid teendhada iyo elboorka gudihiisa iyo aagga ay ka dhacaysa doorashada kulli waa seef hadda annagaa ku sugan dhammaan xildhibaanada waxaan u baaqayaa in la soo wada xaroodo si waajibkeena dastuuriga aan u gudanno waana isbaaradii ugu dambeysay iyo jagboyntii ugu dambeysay maxaa cabdullaahi farmaajo uu dhigto waxaa sumcad darro ugu filan maxaa cabdullaahi farmaajo iyo inta la shaqaysaba in maanta laisku haysto oo uu diidan yahay in dadkii reer Gado ay matalaadooda ka qayb galaan doorashada guddoonka golaha shacabka iyo madaxweynaha maadaama maslaxadiisa gaarka uu ka waayay dagaalkii galbaharre iyo beled xaawo ay wuxuu u soo wareejiyey teendhada iyo xalane wuxuu ku soo aruuray difaaciisa u noqday hadda in isbaarooyin uu dhigto agagaarka airport oo waxa lagu cusub madaxweyne isbaaro dhiganaya oo jagboonti dhiganaya oo xildhibaano qaran isbaaro u dhiganaya waa dhaqan aad u fool xun waxaan qori doonaa petition haddana xildhibaanada labada aqal oo ah maadaama madaxweynaha dastuurka ay ku qoran tahay muddaxileedkiisa dhammaysta xilligiisa si nabadgelyo ah ku wareejiya oo dimuqraadi ah ku wareejiya xilka wuxuu noqonayaa xildhibaan sharafeed buu noqonayaa oo baarlamaanka ka tirsan laakiinse maadaama fidno iyo foodo iyo dagaal iyo xabad wixii ka dhacay villa Hargeysa wixii ka dhacay afisyooni teendhada wixii ka dhacay airport hotel dar xabadaha la dhacay guddoonka la soo weeraray maadaama falalkaasi racan uu sameeyey waxaan qoraynaa petition ah inuu noqon doonin xildhibaan sharafeed ka mid noqda golaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sida Xasan Sheekh uu hadda uga mid yahay marka insha Allah ma noqon doono xildhibaan ka mid ah xildhibaan sharafeed ka mid ah xildhibaanada jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ma noqon doono petitionkaasna waa bilownay maadaama falal liddi ku ah iyo argagax leh iyo kutubisho dastuur iyo burbur iyo fidno iyo dagaal in waddanka geliyo horena ugu horseeday haddana weli uu ku taagan yahay petitionkaas ayaan wadnaa waana boobsiinayna hadduu ilaah ka raali noqdo waxaana geyn doonaa baarlamaanka in ninkaasi uuna noqon ama sharafeed maadaama baarlamaanka uu ku soo biirin maadaama baarlamaanka 11aad maadaama extension uu aaday danna uu laayay doorashada istaag uu ka sameynayo haddana weerarkii weli uu ku wado taas ayaan iyadana ka shaqeynaa haddii ilaah ka raali noqdo xildhibaanada saaxiibada ayaa labada aqal xildhibaanada saaxiibada golaha shacabka ah waxaan u baaqayaa meel walba ay joogaan inay soo xaroodaan oo maanta loo baahan yahay in la muujiyo geesnimo waxaan aniga ahayd baarlamaankii 10aad ayaan ku jiray hore ay ii soo mareen baarlamaan la qabsado jawaari ay soo martay kii gudoomiye maxamed mursal ayay soo martay kii markii ra'iisul wasaaraha la ridayay ayay soo martay